gudoomiyaha gobolka Cayn Maxamuud Maxamed Nuux iyo taliyaha ciidamada bileedka gobolka oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay saldhigga dhexe magaalada Buuhoodle ayaa ka hadlay xaaladda amniga gobolka iyagoo sheegay in gobolka ku soo badanayaan ciyaalka dadka moobilada ka dhaca xilliga habeenkii waxayna sheegeen tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo lagu qabto falkaasi. ayaamaha kan waxaanu diyaarinaynay ciidankii booliska gobolka Cayn wixii shaqada iyo saldhigyadii rugaha ku maqraamooyo wixii kale kuwaas oo aanu diyaarinayno meelaha la iskugu soo guuray la yimi inay ka hawlgalaan oo aanu ruga cusubna hadda ka abuurno kuwa horena aanu ciidamada ku kordhino iyo awoodaha meelaha hadda aanu wax u diyaarinayna waxa kamid ah qaybta galbeedka gobolka Cayn sida Meygaagle sool joogto iyo xaradan saddexda meelood baanu aastaynay inaanu hadda meelaha iyo rugaha hore nooga dhisnaayeen aanu ciidan kordhin ku samayno meelaha aan rugaha hore nooga samaysnayna aanu ruga cusub hadda ka abuurno dhinaca bariga ilma dandan iyo balcad saddexda meelood oo iyaguna kamid ah meelaha aad la iskugu soo guuray dadka xoogiisa hadeerto uu degan yahay shaqaqooyinkii ugu dambeeyayna hadeerto meelaha ay ka dhaceen ku ogog leh meelahaasan marka waxaan rabnaa gudoomiye inaanu ciidankan hadda aan diyaarinayno aanu meelaha ka hawlgelino oo aanu saldhigyada iyo dadka isku soo guuray si ay amnigooda u sugaan aanu ka hawlgelino oo diyaarinayno baahiyihii uu ka waramayay taliyaha qaybta booliska gobolku waa kuwa dhamaantood jira insha Allah taala sida ugu dhaqsaha badan baan rajaynaynaa in wax looga qabto dayrka saldhigga iyo suuliyadiisa wasaaradda arrimaha guduhu waxa weeye hadda ka horbay ballan qaaday oo waxa weeye la dhagax dhigay isla mar ahaantaasna waxaa dib u riday xaaladii COVID-19ka xafiisyada dawladdu intooda badan ee sanadkii la soo dhaafay fasax ku jiray insha Allah sanadkan cusub horaantiisana in dhaqso wax looga qabtan rajaynayna haddii Ilaahay ka dhigo sida aan isla ognahay aan ka warqabno wasaaradda arrimaha gudaha sida oo kale wasaaradda amniga iyana waxaan qayb gaarsiinay reportka agabkii ciidanka ku shaqeyn lahaa haday noqoto quuto iyo haday dress noqoto iyo haddii agabka kale booliska ku shaqeynaya uu noqdo xogaha aan ka helin laamaha amniga gobolka oo boolisku ka yahay waxay sheegayaan ayaantan caasimadda gobolka in ay ku soo bateen falal burcadnimo oo waxa weeye ciyaal intay meelaha istaagaan odayaasha iyo gabdhaha iyo dadka tirsan oo dhan baaranaya xogaha aan ka helino xarumaha caafimaadka iyo isbitaalada waxay sheegayaan maalintii inay ama case ama laba wax la halmaalo arrintaas dadkaas ay wax u geysteen loo keeno xogta markaan helay ciidanka waxaanu diyaarinay inay ka hawlgalaan shaqooyinkaas amniga caasimadana gacanta lagu qabto laga hortago falalka abaabulan ee anshaxa iyo islaamnimada ka baxsan bulshada reer Buuhoodle marka waxa ugu baaqaynaa in ay booliska kala shaqeeyaan si arrintaas loo soo dabar jaro moogtahay macmiil in shirkadda Somtal ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai mobillo talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahabshiil ah oo ay lacag kugu jirto haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefonkaaga kadibna geli telefonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiid lambarka gaaban ee 333